daawadayaal ku soo dhawaada saxafi filimada channel oo idin soo gudbisa dhacdooyinka aynu ku soo qaadano aktarada bollywoodka ee dalkaasi Hindiya iyo atirishooyinka filimada sameeya iyo dhamaanba sheekooyinka ku saabsan Bollywood films. daawadayaal barnaamijkan caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa wadamada loogu daawashada badan yahay filimanta ka soo baxo dalkaasi Hindiya ee ay sameeyaan jilayaasha ka tirsan shirkadaha kala gedisan ee dalkaasi. haddaba daawadayaal Indian Bollywood films waxa ay kamid yihiin wadamada filimada soo saara. wadanka labaad, wadanka koowaadna dunida waxa ku jira wadanka Mareykanka iyo Hollywoodka. hayeeshee Somaliya waxa ay kamid tahay wadamada laga daawado filimada Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. haddaba kaalintee ayay kaga jiraan wadamada aadka u daawada filimanta lagu sameeyo dalkaasi Hindiya ee ay jilaan aktarada iyo atirishooyinka ka soo jeeda dalalka kala gedisan ee ku midoobay shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. haddaba barnaamijkan daawadayaal waxa aynu ku soo qaadanaynaa wadamada aadka looga daawado filimadaas iyo sida ay u kala horeeyaan. daawadayaal waxaan ku bilaabaynaa wadanka Pakistan oo ku jira kaalinta koowaad daawashada filimada lagu sameeyo dalkaasi Hindiya. waana wadanka ay dariska yihiin dalkaasi Hindiya oo waxa sababa la yiraahdaa maadaama luqadda Urduga ay ku wada hadlaan labada dalba. oo dalkaasi Pakistan waxa ay aad u fahmaan luqadda filimanta Hindiya ay ku baxdo sida daraadeedna waxa ay dadka degani ay xiiseeyaan daawashada filimada Bollywoodka. tan labaadna waxa ay tahay maadaama jilayaal ka soo jeeda dalkaasi Pakistan ay ka tirsan yihiin shirkadaha dalkaasi Hindiya ee Bollywoodka oo filima ka sameeya. dawladda Pakistan ayaanan ogolayn oo ku tilmaantay sharci darro kana mamnuucday in dalkeeda lagu daawado filimada lagu soo duubo dalkaasi Hindiya iyo shirkadda Bollywoodka ee ay soo saarto. hayeeshee shacabku arintaasi dhagjala quma aysan siinin oo marba marka ka dambaysa waa ay sii badatay xiiseynta iyo taageerida ay hayaan daawashada filimanta ka soo baxa dalkaasi Hindiya iyo jilayaasha dalkaasi Hindiya u dhashay iyo kuwa Pakistan ee ay ku midoobeen shirkadaha kala gedisan ee dalkaasi jooga. haddaba dalka Pakistan waxa uu ku jira kaalinta koowaad daawashada filimanta India films ee ay dunida Hindiya u iibgeyso. daawadayaal haddaan intaasi Pakistan kaga gudbo waxaa ku xiga wadanka Afghanistan. wadanka Afghanistan waxaa la sheegay oo la xaqiijiyay cilmi baarayaal ay sheegeen in caruurtooda yaryar xitaa ay aad u qaadaan heesaha filimanta Hindiga ku jira xiiso iyo jacayl ay u qabaan. inkastoo wadankaasi uu ka mid ahaa wadamadii sanadihii 90maadkii kow ka ahaa daawashada filimanta Hindiya, haddana dhibaatooyinka iyo dagaalada ka jira aawadeed hoos u dhacaya ku yimid maadaama wadankaasi uu haatan ahayn wadan amniya oo filimanta loo iibgeyn karo. hayeeshee waxa uu ku jira kaalinta labaad daawashada filimanta Hindiya ee shirkadaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. haddaan daawadayaal Afghanistan iyo daawashada filimanta Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya kaga gudbo kaalinta saddexaad waxaa ku jira wadanka China. wadanka China iyo wadanka Hindiya waxaa ka dhaxeeya xiriir soo jireena iyo saaxiibtinimo muddo badan soo socotay. waxaana wadanka China uu ka mid yahay wadanka adduunka ugu dadka badan haday noqon lahayd tira ahaan, maadaama cadadka intaas leeg oo dad ay ku nool yihiin dalka China. India waxa ay ku qasbanaatay inuu xiriir macaamila dhex maro, sidaa daraadeedna China waxa ay qaataan oo ay daawadaan filimanta Indiga ee shirkadda Bollywoodka ay soo saarto. waxaana aad ay u daawadaan filimka ay aad ku jecel yihiin waxaa ka mid ah filimka Three Idiots oo dalkaasi China aanan innaba ha yaraatee aysan ka xiisin oo aalaaba haddii aad tagtid wadanka China magaalooyinkiisa kala gedisan aad ku arkayso isaga oo ay dadka Chinese-ka ahi daawanayaan. waxaa haddana xiriirkiisii hagaajiyay jilaaga caanka ee Salman Khan oo filimkiisa Top Light ku daray atirishada ka soo jeeda dalkaasi China. waxaana la filayaa filimkaasi markii uu soo baxo in wadanka China ay si wanaagsani u daawadaan oo lacaga badani ay ka soo xarooto maadaama atirisha Chinese ay wax ka jishay filimkaasi. daawadayaal haddaan wadanka China intaasi kaga gudbo waxaan soo galaynaa qaaradda Afrika. waxaa qaaradda Afrika kow ka daawashada filimanta Hindiya wadanka Egypt ee Masar. hayeeshee 70aadkii ilaa 80aadkii dalkaasi Masar waxaa loo iibgeyn jiray ama loo geyn jiray in si toos ah looga sii daayo masraxyada filimanta Hindiya. hayeeshee sanadkii 80aadkii ayay dawladda Masar xanibaad ku soo rogtay in filimanta Bollywoodka dalkaasi Masar laga sii daayo maadaama ay hoos u dhac ka dareemeen soo saaristii filmadoodii oo hoos u dhacday oo dadka ayaa waxa ay xiiseyn badan saareen dhanka Bollywoodka. waxayna taasi keentay in filmadii wadanka laga soo saarayay iyo jilayaasha reer Masar ay hoos u dhac ku yimaadaan oo qiimahooda hoos u dhaco. arintaasi waxa ay hoos u dhac ku keentay daawashadii filimanta Bollywoodka. hayeeshee 25 sano kadib sanadkii 2015 ayay dib u bilaabeen in reer Masar ay dib u daawadaan filimanta Bollywoodka
ay aad ku jeclaayeen muddo kahor oo dowladihii hore ay ka xanimeen in dalkaasi laga sii daayo waxaana ay Masar ka mid tahay wadamada aadka looga daawado waxaana ay leedahay janaalo badan oo filimanta Hindiya laga sii daayo oo ku baxa luqadda Carabiga daawadayaal haddaan intaasi kaga dalka Egypt waxaa ku xiga dalka Nigeria oo dalka ugu tirada badan dadka ugu tirada badan ee Afrika ay ku nool yihiin waxaana la sheegay in dalkaasi haba yaraatee wax qurba jooga oo reer India aysan ku nooleen sidaasna ay dalka reer Nigeria ay daawadaan filimanta lagu sameeyo shirkadda bollywoodka ee dalkaasi India waxaana kamid ah filimka ay aadka u daawadaan reer Nigeria filimka Mother of India oo ilaa haatan aysan ka xiisa dhigin filimkaasi oo soo baxay 60maadkii waxa uu kamid yahay filimanta aadka loo jecel yahay dalka Nigeria oo ay aadka u daawadaan reer Nigeria waxaana ay Nigeria ka mid tahay wadamada aadka u daawada filimadaasi xiiseeyana aktarada bollywoodka ee dalkaasi Hindiya daawada haddaan Nigeria intaasi kaga gudbo waxa aan soo galeynaa wadanka Somaliya waxa uu ka mid yahay wadamada filimanta Hindiya laga daawado waxaana warbixintu ay sheegtay in Somaliya ay taageero badan ku lahaayeen Kishore Kumar oo ahaa fanaankii hore ee reer India iyo Amitabh Bachchan 70aadkii iyo 80aadkii ee aad looga taageeri jiray filimanta Hindigana ay aad u daawadaan dadka Soomaalida ah qurbo joog badanina ay ku noolaayeen dalkaasi balse burburkii kadib ay ka kala hayaameen oo ay wadamada dariska qaarna dalkoodii Hindiya dib ugu laabteen haddaan daawadayaal Soomaaliya iyo daawashada filimanta bollywoodka sida ay ku tahay warbixintu waxa ay sheegtay inay aad u daawadaan ilaa maantana ay kamid yihiin inkastoo aysan dawlad dhexe oo rasmiya Soomaaliya aysan lahayn ay dadkoodu daawadaan filimanta Hindiga ee dalkaasi Hindiya ka soo baxa oo shirkadaha kale ka disanay ay sameeyaan daawadayaal daan inta Soomaaliya kaga gudbo waxa kale oo ku xiga Itoobiya lafteeda waa laga daawadaa filimanta Hindiga ee dalkaasi Hindiya ay aktarada bollywoodka ka tirsanay ay ka sameeyaan daawadayaal haddaan intaas kaga gudbo Itoobiya waxaan soo qaadanaynaa wadanka Mauritius waxa sanadku markuu ahaa 1983 filimkiisii koowaad ku sameeyay aktarka caanka ah ee Rajesh Khanna ku sameynta filimkaasi uu ku dhigay filimka Mauritius waxa ay aad ugu noqotay dadka reer Mauritius inay aad u daawadaan filimanta reer Hindiya iyo bollywoodka filimanta ay sameeyaan xiriirkaasi soo jireenka filimaan badan ayaa qayb ka mid ah lagu duubay balse filimka ugu dambeeyay ee dhamaantiisba lagu duubay dalkaasi Mauritius waxa uu filimka Amitabh Bachchan uu jilaaga ka ahaa ee Diljo bi kahani oo sanadka 2005 gabi ahaantiisa Mauritius lagu duubay dalka Mauritius waxa uu kamid yahay wadamada aadka looga daawado filimanta bollywoodka haddaynu ka gudubno Afrika oo Aasiya inta wadamada aadka looga daawado filimanta waxa kamid ah wadanka Bangladesh laftiisa oo isaga xanibaad saaray filimanta bollywoodka hayeeshee wali dadka reer Bangladesh waa ay daawadaan waxa kale oo ku xiga iyadana wadanka Nepal oo atriishooyin kamid ah ay ka tirsan yihiin bollywoodka aad ayaa looga daawadaa luqadana qaarkood ay fahmaan filimanta dalkaasi Hindiya lagu sameeyo Sri Lanka ka reebin oo ay ka soo jeedo fanaanada ama majilaaga caanka ee Jacqueline Fernandez laftiisu waxa uu kamid yahay wadamada aadka looga daawado filimanta bollywoodka ee dalkaasi Hindiya haddaan Middle East-ga soo galno wadanka Palestine waa laga daawadaa filimanta Hindiga oo waa ay xiiseeyaan wadanka Jordan waa laga daawadaa iyadana filimanta bollywoodka ee dalkaasi Hindiya haddaynu nimaano wadamada Gulf ama Khaliijka la isku yiraahdo oo Oman Qatar Imaaraadka Bahrain Saudi Arabia Kuwait dhamaantoodba waa laga daawadaa waxaana kooka wadanka aadka looga daawado wadanka isu taga Imaaraadka Carabta oo gaar ahaan magaalada Dubai filimka Barfi lagu release gareeyay oo siideyntiisii waxaaba ay ahaydba masraxyada dalkaasi magaalada Dubai ku yaala ayaa lagu fasaxay wali bariga dhexe ayaynu ku jirnaaye waxa aynu ku daraynaa Israel lafteeda waa laga daawadaa filimanta bollywoodka ee dalkaasi Hindiya lagu soo duubo hawli Aasiya kama aan bixinay Uzbekistan iyo Tajikistan waa laga daawadaa haddaynu ka soo gudubno Aasiya oo Yurub nimaano wadanka England oo xiriir facweyn iyo guumeysiga hore oo dalkaasi guumeystay awadeed waa laga daawadaa filimanta Faransiiska ku dar wadanka Netherlands ha ka reebin Germany laftiisa filimaan badan ayaa laga sii daayay oo Hindiya Scandinavianka daawadayaal Scandinaviankana waa laga daawadaa waxa kale aad looga daawadaa wadanka Russia oo xiriir fiican la lahaa dalkaasi India dagaalkii qabooba ee Mareykanka uu la galay ayuu Russia ay mamnuucday filimanta Hollywoodka kadibna waxa ay xiriir la sameysay wadanka India ee Bollywoodka iyadoo waqtigaasi aktar badan oo reer Russia ay wax ka jileen filimaan Bollywood waxaana kamid ah filimanta hadda ugu dambeeyay ee dalkaasi Russia lagu duubay gabi ahaantooda No Time for Love gabi ahaantiisba waxa lagu duubay wadanka Russia magaalada Moscow Canada waa lagu daawadaa waqooyiga America haddaynu aadno Doom 2
Latin America Doom 2 gabi ahaantiisba waxaa lagu duubay wadanka Brazil magaaladiisa Rio de Janeiro sanadku markuu ahaa 2007 daawadayaal haddaynu intaasi ku soo koobno wadamada aadka looga daawado filimanta bollywoodka ee dalkaasi Hindiya ay soo saaraan waxaad barnaamijka ka daawanaysaan saxafi filimada channel alaab idin soo gudbisa dhacdooyinka kuwa ugu xiisaha badan ee aynu ku soo qaadano aktarada iyo dhacdooyinka ay la kulmaan ama ogaanina subscribe inaad tiraadaan saxafi filimada channel fikirkiina aad inoogu reebtaan qaybta comments-ka ee saxafi filimada inagoo isku duuban waa baahida saxafi filimada waxaynu idinkaga tagaynaa intaynu dib dambe u kulmayno sida iyo nabadgelyo